السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن دمان daawadayaasha qiimaha sharafta leh idil ahaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka taariikhda kubadda cagta. Waxaan maanta ku soo qaadan doonaa qaybtiisa koowaad. Taariikhda laacibka weyn ee Andres Lionel Messi wuxuu dhashay 24 bishii Juun sanadkii 1987 kuna dhashay magaalada Rosario ee koonfurta dalkaasi Argentina. Corey Messi oo ahaa shaqaale mid ka mid ah warshadaha dalkaasi iyo Silvio Maria oo ahayd shaqaale nadaafadeed ayaa iska dhalay. qoyskiisu asal ahaan waxay ka soo jeedaan dalka Talyaaniga, tii aan ognahay inay dadka Argentina boqolkiiba 60 yihiin Talyaani. Awgii ayaa u soo hajiray dalka Argentina sanadkii 1883. Wuxuu leeyahay laba walaalo oo ka waaweyn, waxayna kala yihiin Rodrigo iyo Matias. Sidoo kale waxaa la dhalatay gabar lagu magacaabo Maria Sol. Da'da 5 jirka ayuu ku bilaabay kubadda cagta. Wuxuu ciyaarista kubadda cagta ka bilaabay naadiga Grandoli oo ahayd naadi maxalli ah. 11 jirkiisa ayaa laga helay Messi cudurka nusqaanaadka hormoonka. Messi wuxuu indhihiisa soo jiitay maamulaha kooxda Barcelona oo maqlay xirfadda iyo mucjisada ku jirta wiilkani. Qoyska Messi waxay heleen fursad waxayna la soo aadeen dalka Spain, halkaas ayaana lagu soo bandhigay xirfadda uu ninkani leeyahay. Barcelona waxay ogolaatay qarashka caafimaadka Lionel Messi. qoyskiisuna waxay u soo guureen dalka Spain. Messi wuxuu halkaas ka bilaabay u ciyaarista kubadda cagta akademiyadda kooxda Barcelona. kulankiisii ugu horeeyay wuxuu saftay sanadkii 2004 waxaana uu burburiyay rekord weyn oo u yeelay kooxdiisa ee ahaa laacibkii ugu yaraa ee abid gool ka dhaliyay horyaalka, waana lagu abaalmariyay bandhigaasi. xilli ciyaareedka 2005 iyo 2006 ayuu si rasmi ah ugu biiray shaxda koowaad ee kooxda Barcelona. markii ugu horeysay ayuu hat-trick ka dhaliyay El Clasico kooxda Real Madrid oo ay ku xifaaltamaan Barcelona. horyaalka Spain ee La Liga wuxuu halkaasi ku qaaday abaalmarino iyo koobab badan ilaa uu ka noqday kan ugu fiican dunida kubadda cagta. Messi wuxuu Barcelona u dhaliyay in ka badan 500 oo gool iyo caawinaad badan, wuxuuna kula guuleystay koobab badan oo ay ka mid tahay 4 jeer oo Champions League ah. Messi waxaa nasiib darro u noqotay inuu koob kula guuleystay xulkiisa kubadda cagta ee Argentina, wuxuuna ku hogaamiyay 4 tartan oo finaal ah, dhammaantoodna wuu ku guuldareystay inuu xulkiisa u qaado. waxaa ugu weyneed guuldaradii ka soo gaartay koobka adduunka xulka kubadda cagta Jarmalka sanadkii 2014. wixii intaas ka dambeeyay ugu dambeyn Messi wuxuu noqday mid la guuleystay xulkiisa, wuxuuna u qaaday koobka qaramada Ameerika iyo koobka adduunka ee ugu dambeeyay sanadkii 2022 dhammaadkeedii lagu qabtay dalka Qatar. noloshiisa khaaska ah waa mid degan oo aan jeclayn buuqa, xafladahana ka fog iyo meelaha la isugu yimaado. waxaa u dhaxday xaaskiisa Antonella, waana hooyada carruurtiisa. wuu guursaday kadib xiriir jacayl oo ka soo dhaxeeyay yaraantoodii. Messi wuxuu Barcelona isaga tagay sanadkii 2021 halkaasi uu sanado badan joogay, wuxuuna ku biiray naadiga PSG ee reer Faransa, halkaas oo uu 2 sano joogay. wuxuuna isaga tagay sanadkii 2023 wuxuuna ku biiray naadiga reer Mareykan ee loo yaqaan Inter Miami, halkaas ayuuna hadda ku dambeeyaa Lionel Messi. halkaas ayuu maanta inoo egyahay barnaamijkeennii taariikhda kubadda cagta. fadlan haddaad nagu cusub tahay YouTube-keena subscribe saar oo like dheh.